kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkii qubanaha VOA barnaamijka qubanaha VOA oo toddobaadkan idinla socodsiinayaan aniga waa Sahra Ciidle iyo Maxamed Cabdi Xasan qodobada aan idinku hayno waxa kamid ah nin Soomaaliya oo ku jira xerada qaxootiga ee jasiiradda Nauru ee Badweynta Pacific oo sheegay in xaalad qalafsan ay ku nool yihiin xaaskiisuna isku dayday inay isdisho Australia ayaa diiday in dadkaasi la siiyo magangelyo siyaasadeed warbixin ka hadlaysa beer loo dalxiis tago oo lagu xanaaneeyo duurjoogta ku taala dalka Tansaaniya oo ay bartilmaameedsadaan ugaarsatada foolka maroodiga ka ganacsada Ruushka iyo Shiinaha oo Carbis bilaabay ku muujiyay cududooda military Carbiskaasi oo Mareykanku ku tilmaamay mid aan micno badan lahayn qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idinku haynaa barnaamijka qubanaha VOA ee toddobaadkan nin Soomaaliya oo ku jira xero qaxooti oo ku taala jasiiradda Nauru ee Badweynta Pacific ayaa sheegay in isaga xaaskiisu ay xaalad aad u adag ku jiraan isla markaana xaaskiisu isku dayday inay nafta iska goyso dhibaatada xeradaasi ka haysta darteed qaxootiga xeradaasi ku jira ayaa sheegaya in lagu khasbay inay ku noolaadaan xaalado aad u qalabsan isla markaasna loo diiday in la siiyo magangelyo siyaasadeed oo ay ka codsadeen dalka Australia warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxay noo hayay wariyeena Xuseen Baraadan guryo macmal ah ayaa ka soo muuqanaya jasiiradda Nauru kuwaasi oo ah xero qaxooti oo lagu magacaabo xerada shanaad waana meel ay ka muuqdaan niyad jab iyo murugo waxaana aad u yar in dadka dunidu ay wax ka ogaadaan dadka xeradan ku jira ayaa ah kuwa lagu qasbay inay halkaasi ku noolaadaan waxaana xeradan ay ku asaasantay heshiis muran badan dhaliyey oo ay wada galeen dowladda Nauru iyo dowladda Australia si loo yareeyo dadka u tahriibaya Australia xerada ayaa waxaa ku jira dad magangelyo raadis ah waxaana xeradan maalgelisa dowladda Australia qaxootiga ku sugan xeradan ayaa sheegay in daryeelka caafimaadku uu liito iyadoo ay jiraan qaar badan oo xanuunada maskaxda qaba Khadar Xirsi waxa uu ka soo jeedaa Soomaaliya waxaana uu xerada ku hayaa xaaskiisa oo maskax ahaan isku buuqday waxaana uu sheegay in ay isaga hurdadii ku yaraatay isagoo ka cabsi qaba in ay isdisho waxaana uu tilmaamay in maalmo yar ka hor uu ka badbaadiyey iyada oo rabtay inay nafta iska qaado Khadar ayaa sheegay inuu geeyay isbitaal u dhow oo ay dowladda Australia maalgeliso balse aan wax caawimaad ah ka helin She attempted suicide. She have a problem. She was not eating last 3 days. She didn't eat food last 3 days. Waxay isku dayday inay isdisho. Dhibaato ayaa haysata. Cuntadii way joojisay muddo 3 maalmood ah. Ma jirto in naga soo war doonto ama nagu soo booqatay dhakhtarka. Haddii ay isdisho ama ay wax qalad ku kacdo, iyaga ayaa mas'uuliyaddaasi qaadan doona. Waana u sheegay. Waan isku dayayaa inaan badbaadiyo. Waxaan ka codsaday inay meel ammaan ay ku hayaan inta xaaladdeedu ay fiicnaanayso waad fahmaysaa anu malaynaa sidaas daraaddeed haddii ay wax samayso waxaan isku dayayaa inaan badbaadiyo waa xaaskaygii waan jeclahay waa noloshaydii iyada ayaan u noolahay Nauru ayaa waxaa ku sugan qiyaastii 900 oo magangelyo raadis ah waxaana ku jira 100 caruur ah iyada oo dacwaduna ay sanadooyin badan qaadato xitaa haddii la aqoonsado in ay qaxooti yihiin Australia ma aqbalayso inay qaadato iyaga oo ku sii xareysnaan doona xeradaasi oo ku taala jasiiradda aadka u yar loona yaqaano inay tahay meel xabsi furan ah guddiga arrimaha qaxootiga Australia ayaa warbixin ay soo saareen oo lagu soo beegay shir madaxeedka jasiiradaha ku yaala Badweynta Pacific waxaa lagu sheegay in dadka xerada ku jira ay halis u yihiin xanuunada dhimirka dalka Canada Soomaalida halkaasi degan ayaa sheegay inay horumar ballaaran ka sameeyeen dhinacyada waxbarashada siyaasadda iyo waliba ganacsiga kumanaan kun oo Soomaaliya ayaa degan dalkaasi Canada kuwaas oo isugu jira kuwa yimi dagaaladii Soomaaliya ka hor iyo waliba kadib warbixin amuraha si faahfaahinaysa waxa Canada nooga soo diray wariyaha VOA Xuseen Nuur Xaaji Toronto waxay ka mid tahay magaalooyinkii ugu horeeyay ee Soomaalidu ay timid markii ay dalkan soo gaareen kolkaas oo ay kala kulmeen caqabado kala duwan Soomaalidu markay halkan yimaadeen 9-meeyadii ama dadkii markay soo qaxeen dagaalka Suuqyada kadib caqabadii kooriyay waxa kamid ah caqabado bulshadeed oo waxa kamid ah sida مثلا Soomaaliya markii la joogay qoyska waxa madax u ahaa aabaha odaga madax u ahaa guriga ka ahaa dabadna isaga la dhigay mataqaana reerka breadwinner wax la yiraahdo ama u shaqeeya oo mataqaana maamula oo mataqaana laga dameeya oo lagu ixtiraama laakiin markii ay wadanka yimaadeen waxay u yimaadeen wadan
aabbaha iyo hooyaduba qoyska ay u yihiin figurehead wax la dhaho iyagaa labadooda madaxo waana siman yihiin mataqaanaa taladana labadoodaa wada leh ama xataa labadooda shaqo wada aada oo mataqaanaa reerka u wada mataqaanaa wada masruufa taladana waa wada leeyihiin marka taas waxay keentay in ay iska hor yimaadaan oo madaxa isdaraan labadii mataqaanaa qof ee aabbihii hooyadii reerka madaxa u ahaa oo waxa la yidhaahdo social problems badan ay soomaalida u keento oo ah qoysas badan oo soomaali ah ay keento inay ku kala tagaan soomaalida ayaa xilligaasi caqabadaha bulsho ee la kulmeen waxay ka sameeyeen riwaayado sidoo kale caqabadahaasi waxaa qayb ka ahaa inaysan lahayn masjid u gaara oo markaa muxaadarooyinka xitaa ku baxa luuqadda soomaaliga masaajid inna loo qabtay haddii nala yiri bil gudaheeda haddeedna af soomaaliga haddeednaan ingilish ku aqrinayn casharada waa idinka joojinaynaa yani maarata taasna dhib bay noo keentay alxamdulilah dadku waa isu yimaadeen dadkii ducaadda masaajidkan baa la furay oo dadka luuqadooda loogu aqriyo meydkooda loogu dhaqo caruurtooda maaragtay af soomaaliga iyo qur'aankana lagu baro yani maaragtay haddaba xalka soomaalida ee hadda waa sidee maxaa isbeddelahayaasi ku yimid tan iyo markii ay yimaadeen dalkan horumar badan baynu gaarnay ciyaalka wadanka ku dhashay iminka waa 30 jiro jaamacaday ka baxeen qaar baa dawladda u shaqeeya qaar baa maxay haytooy professional ah sida looyarada oo kale ilaa xitaa dhakhtaraynu leenahay horumarka haddaan ka soo qaato wad ogtahay waxaan ku jirnaa maanta ilaa guriga dawladda alxamdulilah shukri oo aynu ka mid nahay soomaalideenu wasiirada ugu cadcad waxaa kaloo ka mid ah areadan iminka aan joogno anigu areadan waxaan ka mid ahay dadka businesska ku leh dadka xilligaas soo gala wadanka wax ku bartayna waan ka mid ahay sidaad ogtahayba western iyo lawrence waa waxaan dhahnaa anaku weli looma bixin laakiin waxaan u naqaanaa little muqdisho waxaan ku leenahay businessyo aad iyo aad u badan ilaa intan keliya labada layd ee western iyo lawrence meeshay iska gooyaan waxaan ku leenahay in ka badan 30 business ama dukaama ha ahaadeen ama xawaalada ha ahaadeen farmasi ha ahaado physiotherapy sidaydan oo kale ha ahaado makhaayada ha ahaadeen iskuulla ha ahaadeen heer sare officialisa waxyaalo badan baan ku leenahay horumarka ugu weyn soomaalidu waxay ka sameeyeen dhinaca siyaasadda sanadkii 2015 kadib markii axmed xuseen uu noqday xildhibaan heer federaal ah iminkana ah wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga Kanada sidoo kale Faysal Xasan ayaa bishii Juun ee sanadkan loo doortay xildhibaankii ugu horeeyay oo Soomaaliya oo ka mid noqda xildhibaanada gobolka Ontario halka Maxamuud Aamin uu ahaa murashax xildhibaan walow uusan guuleysan hadda waxaa golaha deegaanka ee magaalada Toronto u sharaxan Nicime Maxamed Faarax halka Zakariya Gacal iyo Cali Maxamedna ay u sharaxan yihiin guddiga iskuulada ee magaaladan Xuseen Nuur Xaaji qubanaha VOA dalka Tanzania waxaa ku taala beerta labaad ee ugu weyn Afrika ee lagu xanaaneeyo duurjoogta isla markaasna loo dalxiis tago sidoo kale beertani waxay bartilmaameed u tahay kuwa ugaadhsada fuulka maroodiga kuwaas oo halkaas si naxariis darro ah ugu dila maroodiyo badan si ay uga saartaan fuulka dibaddana ugu iibgeeyaan haddaba VOA ayaa warbixin ka diyaarisay ugaadhsiga fuulka maroodiga Afrika waana tan qaybtii labaad oo ay diyaariyeen wariyaasha Omari Kazok iyo Id Ligongo waxaase soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac degmada Selos ee dalka Tanzania ayaa lagu diyaariyay seera ka caagan ugaarsiga awoodiisa ayuu si sharaf loogu muujinayaa mid ka mid ah goobaha duurjoogta qaniga ku ah ee qaaradda Afrika balse ah meel halis badan in maroodi joogo ugaarsatada ayaa u qowracaa si arxan daran 2009kii 114,000 ayaa kayntan ku noolaa 5 sano kadibna kaliya 43,000 ayaa ku hadhay intii goobta joogtay 60% way dhinteen Mubaaraga Kabalika waxa uu ka shaqeeyaa looxa waxaana uu ka yimi Tabika oo ku taal xadka dhanka waqooyi bari ee Selos waxa uu haystaa shaqo kale oo ah inuu si mutadawacnimo kula shaqeeyo askarta xagga hore kaga jira dagaalka ka dhanka burcadka wax ugaarsada waxaanu nahay mutadawiciin waayo shaqadan waanu jecelnahay sidoo kale waxaanu helaynaa waxoogaa lacag ah si aanu ugu kobcinno dugsiga iyo caafimaadkayaga sababtoo ah arrimahani waxa ay u soo kordhayaan si aayar ah dadaalkan lagu shaqaaleeyay dadka deegaanka si loola dagaalamo ugaarsatada ayaa ah iskaashi ka dhexeeya dadka iyo dowladda Tanzania iyadoo oo lacag siisa dadka tuulada sida Tabika si ay ugu qabtaan mashaariicda arrimaha bulshada ah taasi beddelkeeda dadka tuuladu waxa ay waardiyeeyaan dadka ugaarsada wax
mutadawiciintani waa sabool xilliga ay qabtaan budhcadda waxa ay la laabtaan iyaga oo lacag sitaa. halkan waxaan joogay ilaa shalay mana filayo inaan wax ku helayo shaqadayda. qof kasta oo aanu gacanta ku dhigno waxaannu la dhaqannaa sidii dembiile. haddii ayna siiyaan $8 oo ah 20,000 oo shilin ama $10 oo ah 25,000 oo shilin waannu qaadanaynaa sababtoo ah sida caadiga ah ma aanu haysan wax aanu cunno ilaa shalay. ugaarsatadu kama foga mubaarak. xaqiiqatan waa dadkii ay isla soo koreen. inaad ugaarsada noqotaa ma aha wax ku adag dhallinyarada tuulada saboolka ah ku nool. muuse umaari matiwaawa waxa uu shaqada ugaarsiga ka dhexlay aabbihii waxaana uu sharaxayaa sida ay tahay. waxaan hoggaamin jiray koox 6 qof ah waxaannu hubinaynay in lanagu dilo goob ammaan ah haddiiba ugaarsatadu ay soo baxaan. haddii lana qabto waxaa suurtagal ah in lana dilo. waxa aannu leenahay maalgeliye noo dira selos waa in aannu geesiyaal noqonno. waa nolol ama geeri. mid waxa uu ku soo boodayaa geed si uu u eego balse qaar ka mida asxaabtayda waa la dilay. Jumane Magembe waa wasiirkii hore arrimaha dibadda khayraadka dabiiciga ah ee dalxiiska ee Tanzania. waxa uu sheegayaa in dowladda Tanzania ay ugaarsatada heer kasta kula dagaalamayso. waxaannu samaynaa inaannu beegsanno ninka wax soo toogta, ninka wax dila, ninka ka soo qaada baadiyaha isagoo adeegsanaya mooto ama baaskiil, ka soo kaxeeya baaskiilka una soo qaada goobaha waaweyn islamarkaana geeya magaalada, iyo ka madaxda u ah ee magaalada ku sugan ee ka ganacsada. dagaalka ugaarsatada ee Tanzania maroodigeedu waa xilli khatar badan. imika mutadawiciinta sida mubaarak oo kale waxbay helaana si ay u caawiyaan. xafiiska ilaalinta iyo maamulka deegaanku waxa uu joojiyey lacag uu siin jiray aagga duurjoogta ee Tabika. mubaarak ayaa sheegaya haddii aan la helin caawimo badan inay ka go'an tahay maroodiga. waxaad arkaysaa qof ugaarsi sameeya oo guulaysta, taasina si wacan ayay kuu dhiirigelinaysaa. ugaarsade waad noqon kartaa halkii aad ka dhowri lahayd qof kale ficiladiisa. waad u jeeddaa waxa uu wataa mootadiisa halka aad adigu weli kaga tiirsan tahay mootooyinka dadweynaha si aad u qabato shaqadan mutadawacnimada ah. mubaarak waxa uu eegayaa habeenka. tanina sida uu sheegay waa dagaal qof kasta u yaalla. toddobaadkan dalalka Ruushka iyo Shiinaha ayaa bilaabay carbis military oo ay khubaradu ku tilmaameen inuu yahay mid ay isugu diyaarinayaan colaad cusub. dowlatuskan military ayay ka qayb galayaan 10,000 oo ka tirsan ciidamada labadaasi wadan. carbiskan oo noqday kii ugu xooganaa ee ay qabtaan labadaasi wadan tan iyo burburkii midowgii Sovieti ayaa Mareykanku ku tilmaamay inuu yahay mid aan macno badan lahayn. Ibrahim Xasan Daanduray ayaa warbixin muraha ku saabsan inoo soo koobaya. ruushka ayaa bilaabay carbiskii military ugu weynaa tan iyo markii uu burburay midowgii Sovieti. carbiskaas ayaa waxaa ka qayb qaadanaya ciidamo ka socda dalka Shiinaha oo tiradooda lagu qiyaasay 3,000 askari iyo 30 dowladood oo ciidamada Shiinuhu ay leeyihiin. ka sokow ciidanka Shiinaha waxaa kale oo ka qayb galaya ciidamo ka socda Mongolia. carbiskaas ayaa waxaa lagu magacaabaa Vostok 2018 waxaana lagu qabanayaa bariga Siberia waxaana uu soconayaa ilaa iyo 17 bisha. Shiinaha iyo Ruushka ayaa hore wadajir u qabtay carbis military inkastoo heerkan oo kale aanu ahayn. isbaysiga NATO iyo Mareykanka waxay sheegeen inay isha ku hayn doonaan carbiskaasi. ujeeddada ugu weyn ee carbiskan ayaa ahayd in la eego awoodda loo leeyahay in ciidamo tiro badan loo dhaqaajin karo meelo aad u fog. sidoo kale waxaa lagu eegi doonaa qaabka ugu habboon oo ay ciidamada dhulka iyo kuwa badda ay iskula shaqayn karaan. waxaa kale oo ujeeddooyinka carbiskan lagu sheegay in lagu ogaanayo sida loo horumarin karayo maamulka iyo xakamaynta ciidanka. carbiskan ayaa ku soo beegmaya iyadoo hogaamiyaasha Shiinaha iyo Ruushka ay ku kulmeen madasha dhaqaalaha ee magaalada Vladivostok. xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka Jim Mattis ayaa wax aan macno badan lahayn ku tilmaamay carbiskan. Grant Newsham oo ah khabiir ka tirsan macadka dalka Japan ee daraasaadka istiraatiijiga ayaa wuxuu sheegay inuu shaki ka qabo in talaabadan ay tahay mid la isku diyaarinayo colaad culus. hase ahaatee waxa uu tilmaamay in arrintani ay mushkilad ku tahay Mareykanka iyo NATO. madaxweynaha Ruushka Putin ayaa maanta Arbacada sheegay in Ruushka iyo Japan
ay heshiis nabadeed wada seexan doonaan. heshiiskaasi ayaa waxa uu soo afjarayaa xurguftii ka dhalatay dagaalkii labaad ee adduunka. putin ayaa sheegay in heshiiskaasi uu yahay mid aan wax shuruuda ku xirayn, waxaana arrimaha laga heshiinayo ka mid a 4 jasiiradood oo ruushku uu ka haystay jabaan tan iyo sannadkii 1945. ra-iisul wasaaraha jabaan oo la kulmay madaxweynaha shiinaha oo ay ka wada qayb gelayaan madasha dhaqaalaha ee Vladivostok ayaa waxa uu sheegay in Oktoobar uu booqan doono shiinaha isaga oo noqon doona ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee ka socda waddankaasi jabaan ee booqda shiinaha tan iyo 2011. intaasina waxaa ku eg barnaamijkii qubanaha VOA ee toddobaadkan. intaynu daawadayaal toddobaadka dambe kulmayno haddii ilaahay ogolaado waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.